السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هم تيم من النجدة ونسان يوديو جذبا كسر وهذا وروح العاود كاين عالم أبي نبوا نكسن ورركوا وجدور كرون عاو مريكان روشكا يحيي صدق كتاجن إيران هذا نديكور رأي مريكان إذا حويناها مريكان أي عاو كل يغيستي دولة الصومالية سيدو كله maraykanka ayaa sheegay in 17 bishan ay u qabteen Soomaalida inay isaga baxaan maraykanka sidoo kale Minneapolis ama Minnesota ayaa Soomaali badan maanta lagu qabtay fiidiyowga maleer daawada wahagaag saaxiibayaal Donald Trump ayaa saacad ka hor weeraray Soomaaliya iyo Soomaalida Minnesota wuxuu yiri ma haystaan dawlad iyo booliis waxay yaqaanaan bes ah dhac dil iyo burcad badeednimada waxaan kaga joojiyay gantaal haddii mar kale ay isku dayaan burcad badeednimadana waa markii adduunka ugu dambeysay intaasi kadib Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday Soomaalida Minnesota wuxuuna yiri Soomaalida waxay ka imaadeen meel aan waxba ka jirin waxay Minnesota ku wataan baabuur qaali ah sida Mercedes ceer ayayna qaataan sidoo kale wuxuu sheegay in uu sharciga kala laabanayo kuwa sharciga haysta waan kala laabanayaa haddii dembi lagu helo haddii Maraykanka ay u imaadeen fawdo iyo dhac xabsi weyn ayaan ku ridayaa ilhaanna Soomaaliya ayay ka imaatay Donald Trump ayaa caawa waxba u reebanin Soomaalida Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya joogaba sidoo kale Ruushka iyo Ukraine wararkan idinku hayno mid ka mid ah weeraradii ugu xoogga badnaa ee sanadkan 2026 ayaa ka dhacay habeenkii la soo dhaafay Ruushku wuxuu qaaday weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliyaal lahayn ku beegsaday meelo badan oo Ukraine ka mid ah taasoo dhalisay dhimasho iyo dhaawac waxaana jira barakacin dad badan oo aan haysan koronto amba leyd sidoo kale madaxweyne Trump iyo madaxda Iran ayaa hadallo adag isdhaafsaday iyadoo Iran ay sheegtay inaysan u dulqaadan karin inay si buuxda ugu diyaar garoobayso haddii faragelinta qaawan ku haya Maraykanku uu ka deyn waayo sidoo kale wararkan idinka hayna Afrika kacdoon iyo colaadaha gudaha Afrika dagaalka Suudaan iyo meelaha kale ee Afrika ayaa wali sii socda iyagoo saameeyay malaayiin qof iyo amni gobolka guud ahaan tirada dagaalada oo kordhay daraasado iyo xog ururin caalami ah ayaa muujinaya in tirada khilaafaadka hubaysan ay gaadheen heerkii ugu sarreysay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo 100 milyan oo qof ay saameeyeen sidoo kale Soomaaliya wararka dawladda Maraykanka oo degnin amni ka bixisay safarka madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisu ay ku tagi lahaayeen magaalada Laascaanood qoraal lagu baahiyay website-ka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iftiga la socda ay waajihi karaan xaalad amni ayagoo sheegay in laga cabsi qabo faragelin shisheeye iyo weeraro halis ah dhanka kale maamul goboleedyada qaar ayaa jawaab ka bixiyay sida Puntland iyo Jubaland ayaa si wada jir ah u diiday go'aankii dawladda federaalka ee ay ku joojinaysay xiriirka Imaaraadka iyagoo sheegay in heshiisyadoodu ay sii wadi doonaan gaar ahaan kuwa amniga iyo horumarinta sidoo kale Imaaraadka ay dawladda Soomaaliya xarigan u jarnay wali way sii joogaan wala yar daawado waa kuwan jooga xilligan macnaha dawladda waxay u qabatay 24 saac ma loo qaban walow laakiin Imaaraadka wali Soomaaliya uu ku sugan yahay meeshan Boosaaso waaye maxaa isku sheegnaa marka okay maxaa ka wada hadalnaa haddii Puntland ay tiri amarkayga shaqeynayo wali Imaaraadka uu yahay kan fiiri Imaaraadka wali waa kaasa diyaaradaha Imaaraadka iska raaxaysanayaan Boosaas iska imaanayaan okay sidoo kale Jubaland ku dar Imaaraadka hadal wax ma ka taro ficil dawladii ficilka Soomaaliya daawe هذا الواحد ما ترى نميه aniga muhiimadeeda waxa waa ficil okay
imaaraadka hadal wax ma looga qaadi karo wadamo fara badan liibiya ay ka tahay suudaan ay qayb ka tahay imaaraadka ficil la tusay yaa ficil tusi karo yaa ficil tusi kara imaaraadka cid tusi karta balan waa ka saacaw iska baashaalooya caaw imaaraadka caaw ugu daran tahayba imaaraadka caaw iska baashaalaya marka dawladda hadalkeeda ka soo qaad ma lahan haddoosan ficil la socon okay maxaa Somaliland ka doonaynaabo oo hadda Israa'iil aqoonsatay Soomaaliya dhexdeeda waxay u baahan tahay gudaha oo u jeedaa fiire wax laga hadli kara ma lahan marka haddii oo qof macnaha xiriirka u jaraayo waxaa fiican in saacad loo qabto waqti loo qabto maalin loo qabto dawladda waxba qabanba wararka naga soo gaadhiya Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo maanta la kulmay wasiiradii soo maray wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa baaq u diray dalalka gobolka kuwa Carabta iyo wadamada Islaamka isagoo oo ugu baaqay in aanay dhageysan hadallada ka soo yeedhaya dadka uu ku sifeeyay maangaabka kuwaasoo doonaya in la duqeeyo Somaliland madaxweyne Cirro ayaa sheegay in dalalkaasi ay weli haystaan fursad ay ku aqoonsan karaan Somaliland dhinaca kale madaxweyne Cirro waxa uu shacabka u sheegay inay maanta kala ogaadeen cidda saaxiibka la ah iyo cidda cadawga u ah isagoo oo ku booriyay inay sii adkeeyaan midnimada iyo isku duubnida ay muujiyeen maalmihii la soo dhaafay sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inay u socdaan Somaliland oo marnaba afkiisa soo maray waxa la dhaw waqooyi bari sidoo hadalka uu yiri waxa weeye sidan Somaliland ayaan u soconnaa Somaliland ayaan socdaal u nahay gaar ahaan caasimadii midnimada ee Laascaanood mar kale ayay goboladaasi midnimada dalka xijiyeen Soomaalinimada naga badan ereyada noocaas ku hadlay ujeedku u socdayna ma aha sool inuu waqooyi bari u socday waxa tafaasiil ka bixinaya saaxiibkay balay daawada waxaan arkay ninkii fiqi ahaa ee saaka yiri Laascaanood waa Somaliland oo galabta intuu Laascaanood tagay la soo dhaweynayo loo durbaana tumayo shacabkii iyo siyaasiyiintii beesha dhulbahanta ay soo dhaweynayaan oo waliba si aad loo soo dhaweynay hadalkii uu saaka yiri ee ahaa Laascaanood waa Somaliland raali gelin kama bixin wuxuu ka waday ma sheegin micnuhu ula jeeday ma sheegin sababta uu waqooyi bari u inkirayo meesha uga saaray ma sheegin saasoo ay tahay waa la soo dhaweynayaayo yacni aad baa loo soo dhaweeyay Laascaanood loogu soo dhaweeyay anigu waxaa islahaa ugu yaraan tilaaba laga qaadayaayo dhowr saacadood baa la xidhaya markaan arkay galabta fiqi sida loo soo dhaweeyay baan laba su'aalood isweydiiyey haddaba u fiirsada laba su'aalood baan isweydiiyey su'aasha koowaad waxa weeye hadalkii saaka fiqi yiri ee ahaa Laascaanood waa Somaliland hadalkii saaka fiqi yiri ee ahaa Laascaanood waa Somaliland hadalkaas ka waran haddii uu maanta dhihi lahaa siyaasi ma jeerteena ama wasiir ma jeerteena ama nin madaxo ma jeerteena hadduu maanta dhihi lahaa Laascaanood waa Somaliland ama Laascaanood waa Puntland maxaa dhici lahaa reer waqooyi bari iyo dhulbahanta iyo reer Laascaanood sidee uga falcelin lahayd dhul gariir baa dhici lahaa Soomaaliya waa la yaabi lahaa tusaale ahaan Faroole senator Faroole hadduu oran lahaa madaxweynihii hore Puntland maanta hadduu dhihi lahaa Laascaanood waa Puntland ama Laascaanood waa Somaliland maxaa dhici lahaa bay kula tahay su'aasha koowaad waa taa su'aasha labaad waxa weeye fiqi oo Laascaanood u socda baa si furan ama si public wuxuu u leeyahay Laascaanood waa Somaliland marka su'aashaas weydiiyay waxa weeye fiqi oo saa ugu dhiiranaya asagoo Laascaanood u socda inuu dhaho Laascaanood waa Somaliland ka waran asagoo xamar jooga gurigiisii jooga sidee yani ula dhaqmi karaa ama ula hadli karaa siyaasiyiinta dhulbahanta ee xamar joogta ama siyaasiyiinta waqooyi bari oo firdhiga ugu horeeyo ee xamar taga maalin kasta markuu la shirayo oo aan si public aan ahayn shirarka yani media laga qariyo markay isoo hor fariistaan fiqi iyo firdhiye sidee ula hadli karaa bay kula tahay bal isweydii muxuu ku oran karaa qiyaasa bal hadallo noocyo ku dhigi kara يعني وسؤال الاسويدين كرو فقه او سي بابليغا ان قرسنين او دهيا لاسعانود وا سومالان يعني markaan kaamiro ay jirin ama shirarka dawladuhu galaan oo madaxdu gasho marka uu la joogo firdhiye ama siyaasiyiinta kale waqooyi bari ama siyaasiyiinta dhulbahantay muxuu ku oran karaa anu hadda ka hor waxaan idhi dhowr bilood ka hor
taageeraha koowaad ee maamulka waqooyi bari waa aniga si publican u yiri haddana waa ahay laakiin hadda tan kuma taageeri karo waqooyi bari waxaan ugu taageeri karin waxa weeye fiqi oo jiritaankii waqooyi bari ka soo horjeedo diidan oo dafirsan baa la soo dhaweynaya marka dee ma xumaan iyo burbur iyo ninaan ogolayn inaan noolaati baan kugu taageeri karaan yani dad baa waxay moodayaan inaan mucaaradayo ma mucaaraday laakiin sida xaqiiqda waxay tahay war qofka waxaa lagu taageeraa wixii sax wixii fikirkaaga ka gadmi kara laakiin wixii khalad ah u jeedid waa inaad ka hadasho dhahdo ruuxan macquul maaha marka hadalka fiqi soo dhaweynna ma mudnayn in la taageerana ma mudnayn ee xabsi in la geeyay xabsiga dhexe laascaanood marka su'aalaha labada su'aalooda bal ha laga soo jawaabo aad baa daawadayaal war waxaan caawidinahayna waa naga intaa tan iyo intan dib u kulmayno habeen wanaagsan please subscribe ta like ta share ta comment bye assalamu calaykum